qof kasta oo xaflad weyn dhigaya oo dhahaya waa cibaado nabiga lagu xusaya su'aalahan waa in la weydiiyaa su'aasha koobaad ihtifaal bil mawlid rasuul sallallahu alayhi wasallam dalashada nabiga fiiriya qofka hadduu meeshii la isku haystay waxa lagu yaqaanaha leeyahay qofka baadilowga mas'aladii la isku haystay mas'ala aan hayno ka hadla nabiga in la jeclaado mu'miniintu iskuma haystaan qof walba oo nafta ku jirta aan nabiga ka jeclay nabiga mar rumayn waa waajib ma aha mas'alada la isku haystaa nabiga in la jeclaado nabiga in lagu salliyo sallallahu alayhi wasallam ma aha mas'alada la isku haystaa qof walba mu'min ah waa inuu nabiga ku salliya kaan ku sallin salaadii subaxa tansiixime ma aha masaa'ilkaas ee waxa la isku haystaa bishaan xaflad weyn inta la dhigo qasaa'idka la aqriyo illa ira nabiga la xusa su'aalahan hala weydiyo marka waxay tahay su'aasha koobaad xafladaas in bishaan la qabtaa ma macsiya mase waa daaco ilaahay loogu dhawaado u fiirsada ma daaco ilaahay loogu dhawaadaa mase waa macsiyo haddii uu yidhaa waa macsiyo warkii waaba dhammaaday soo maha khilaafo waa dhammaada macsiya la iska daayo hadduu yidhaahdo waa daaco ilaahay loogu dhawaado su'aashaanaa la weydiina nabigu ma ogaa sala allahu calayhi wasalam bishaan rabiicul awal xaflad weyn soon kama hadlayno weliga ha ka leexan masalada laga hadla qofka hadduu ka leexdo masalada laga hadla waxa weeyaan waxay daliil u tahay inuusan dariiq bahaynba nabigu haddii uu yidhaa waa daaco su'aasha labaad maxay tahay haye nabigu daacadaas ma ogaa mise ma ogeyn hadduu yidhaa ma uusan ogayn nabigiyuu jahli u nisbeey waana gaalnimo waa gaalnimo hadduu yidhaa waa ogaa nabigu sala allahu calayh wasalam waa ogaa inay daacad tahay su'aasha saddexaada la weydiina waxaa la leeyahay waa dhammaataye nabigu cilmigaas mana soo gaarsiiyey oo ma saxaabadiisii ilaa saxaabada cilmiga nabiga ka soo qaaday mana yidhi bishaas rabiicul awal marka la gaaro xaflad weyn dhiga ii dabaaldega dhalashadayda weyneeye cilmigaas mana soo gaarsiiyey mase nama soo gaarsiin oo waa la aamusay hadduu yidhahdo waa la aamusay nabigiyuu duray ilaa nabigii maxaa la yidhi yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal famaa ballaqta risaalata waa beenin nabiguna waa gaarsiiyey diintii nabigiyuu khiyaano u nisbeeyey hadduu yidhahdo nama soo gaarsiin nabigu waa ogaa inay daacad tahay namana soo gaarsiin nabigaana khiyaan waa midda imaam maalik uu leeyahay man ibtadaca fi lislaami bidcatan yaraahaa xasana faqad zacama ana muxamadan khaana risaala qofka diintan islaamka bidca ku soo dara ee ka aamina inay tahay daaco wanaagsan waa qof ku andacooday nebi maxameda khiyaanay diinta ilaa allah sheegay inay kaamil aheed hadday marka diintii ka mid aheed asuusanna soo gaarsiin nabiga khiyaanay wey qof nabiga khiyaano u nisbeeyna waa kufr su'aasha soo hartay waxay tahay hadduu yidhaahdo haa cilmigaas waana soo gaarsiiyo hala dhiga xafladuu yidhi khalaas intaha alamru waa dhammaaday haatuu burhaanakum in kuntum min asaadiqiin waxaa la leeyaha natus kitaabka ay ku taalo haddaad run sheegayd inuu keenana waxaa uga fudud in la yidhaahdo rati neefgeela maaragteen cirbadda daloolkeeda geli taasaa uga fudud inuu keeno maxay ku taalla laga keena qof la yidhi meel nabigu yidhi xaflad ha lagu dhigo keen waa qof la yidhi rati cirbadda daloolkeeda geli ma la geli karaa ma laga keeno ma keen haddaad run sheegay ilaa diintii nabigu ma lumin waxay ku taalaa saxaaxa kutubta saxiixa sunankay ku taal masaaniidday ku taal macaajintay ku taal baabu ixtifaali bimawlidi rasuul halkay ku taalla waxay ku taallaa kutubo dambe dad qoreen laakiin nebi muxamedaa yidhi u dabaaldega kitaabay ku taallaa ma jiro been hawaas hadda waa iska dhihi karaa kama hadlayn aniga been hawaas ee waxay sheegay xadiis saxiixa intaas waxaan isleeyahay haddaad fahanto masaladaas waa kaa hartay warkeed waana dawowday